السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور عبد الرحيم محمد حسن، وحكبرت مقالة لاهور دلك باكستان، جامعة University of Health Science قيبتي دنتالك. موضوعنا ما تروح كسب سنة هاي قابك صحة اللي عادستو. انت أنا موضوع بلابين ما انتو عن كهذا دونا قابك صحة اللي عادستو دونا. waxyaabaha kale oo ka hadli doona waxa ku jiri doona haddaan cadeysan maxaa dhici doona haddaad si qalad u cadeysatid maxaa dhacaya iyo goormaad cadeysanaysaa meeqa waqti aad cadeysanaysaa iyo waxyaabo badan waxaan tusi doonaa fiidiyoyo picture insha Allah taala wax walbana waxaan ku sharxi doonaa insha Allah taala luqadda Soomaaliga waxaan insha Allah taala huba inaad fahmi doontaan and I will try my best. maxaa dhacaya haddaadan cadeysan qofku cadayga ka taga maxaa ilkiisa iyo ciribkiisa gaaraya marka hore qofka suus ayaa ku dhacaya teeda labaad ciridka ayaa dhiigaya qofka maalmo ka bacdi markuu cadayga isticmaalo mise sometimes cuntada hataa markuu cunayo tan saddexaad iliga dhan oo aad weyso maxaa yeelay processyo badan oo koos gareynayo macnaha iliga inuu dhammaantiisba iska baxo mise dhaco tan afraad oo ah afkoo ura carabta afkoo ka tagta qofkii aan dadka dhex geli karin tan shanaad oo ah carabka oo cadaan fuula carabka qof wax walba la dhaqan macnaha oo isbedela marka carabka haddii macnaha la safeynin oo kale cadaan ayaa fuulaya hadda sawirkan oo kale waa sawir tusaale u ah qofka cadayga ka taga macnaha ilkiisa iyo waxyaabo badan iska bedela ciribkiisa iyo kalarkii macnaha ka taga kalarkii macnaha oo ilkahooda macnaha luma iyo waxyaabo kale marka qofka meeqa mar ayaa laga rabaa inuu cadeysto maalintii waxaa muhiim ah inaad cadeysatid 3 mar maalintii saddexdaas mar oo labada mar ee macnaha ugu muhiimsan ay tahay quraacda ka bacdi iyo intaadan seexan ka hor laakiin si markaas soo kacdidna inaad cadeysto waa fiican tahay si afkaaga oo u carfo marka cadiga ku cadeysanaysid sooya cadiga ku cadeysanaysid waa inuu ahaadaa medium size first of all macnaha medium size ma ahaada waaye waana inuusan adkaanin maxaa yeelay cadiga hadduu brushkiisa adag yahay ciridkaaga ilkahaaga ayuu dhaawacayaa marka waa inuu soft yahay oo aad khafiif u yahay hadda waxaan ka hadlaynaa qaabka loo cadeysan lahaa ayadoo videoga sida loo cadeysan lahaa iyo sida leeyahay qaabkee u cadeysanaynaa cadayga markaan u wadno iliga waa inaan ka dhignaa 45 degree angle mise 45 degree wax yar aan qaloocinaa si micnaha wax yarna ciridkii uu gaaro iligiina uu gaaro anagoo wareejinayna rotatory movement anagoo sameeyna oo saas u wareejinayna waxaa ka arki doontiin haddeertaan videoga markaan cadayga aan wareejinayno qalloocaan sameynayno 45 degree angle meeshaana ugu jeedaa 45 degree angle laakiinse haddaan straight ka dhigno aan toosino waa qalad saad meeshaan uga jeediin marka waan wareejinaynaa tartiib qaybtan hore saan markaan u wareejino waxaan sameynaynaa qayb walba oo ka mid ah iliga waa inaan si gaara u dhaqnaa qaybta hore kadib qaybta dambe kadib qaybta gadaale dhinacyadeeda kala duwan dhinac walba 2 minutes inaan macnaha overall
si fiican 2 daqiiqo aad u fiirisaa waaye waa inaadan waana inaad ogaataa meelahu ku badan yahay wasaqda meeshaasoo la rabo inaad si fiican u dhaqdo hadda qaybta gadaalo waaye waa toosinaysaa tartiib markaad dhaqayso ma la rabo inaad isticmaasho awood maxaa yeelay haddaa awood isticmaasho waxaa dhacaya inay iligii micnaha wax soo gaaro mise ciribkii wax soo gaaro marka waa inaad slow tartiib aada u socotaa qayb walba gaarkeeda aa u dhaqdaa qaybta hadda qaybta dambena saasaa u dhaqaysaa kadib hadda waxaad arkaysaa qaybtii dambe oo dadka badankood si fiican aanan u dhaqin badankoodna gooska carries mase sus laga qaado qaybtan dambe maxaa yeelay dadka si fiican concentration fiican uma siiyaan tartiib ayay u marmariyaan waa ka tagaan laakiin saas ma la rabo waa inaad la socotaa waxaad sameynayso tartiib intaasi waxaa noogu eg cashirkeenii qaabka loo cadaysto waxaan filayaa Soomaali badan inay ka faa'iidaysatay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.